wiil iyo gabar Soomaaliyeed muddo 4 sanadooda guri ku wada noolaa iyagoo aan isqabin wadanka Sweden ee qaaradda Yurub. Haddaba maxay tahay sababtu? Maxaa se dhacay? Barnaamijka ayaynu ku dahqaadaynaa. Ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u guda gelin, haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar. Asxaabtaadan la wadaag. Ku soo dhawaada barnaamijka. labadan lamaane ee Soomaalida waxay ahaayeen lamaane ka soo galay wadanka Talyaaniga iyagoo tahriib ku soo maray badda Mediterranean-ka ee soo galay gudaha wadankaasi Talyaaniga. waxayna ahaayeen laba isla socday wadadana soo wada maray iskuna safar ahaa. waxayna ka soo bilaabatay barashadoodu markay marayeen dalka Suudaan. wuxuu Alle u suurtageliyay in ilaa markay Talyaaniga ka soo galayeen ay isla socdaan iskuna safraan. waxayna yimaadeen wadanka Talyaaniga. markay sidaas u soo galeen labadoodiiba gudaha wadankaasi Talyaaniga, waxaa laga wada qaaday farihii Talyaaniga. kadib markay muddo joogeen wadankaasi Talyaaniga ee ay qaateen sharcigii Talyaaniga ayaa waxaa la dhahay istabara, maadaama ay tihiin laba ruux oo dhalinyaro. waxayna bilaabeen isla markiiba inay soo baxaan oo ay soo aadaan wadanka Sweden. wadanka Sweden inta ay soo aadin ka hor waxay haysteen xoogaa information kaasi oo ah in dadka ugu badan ee Talyaaniga lagu soo celiyo ay yihiin single-ka ama dadka aan isqabin ee aan lamaanaha ama qoyska ahayn. haddaba wiilkii iyo gabadhii waxay go'aansadeen iyagoo aan wax xidhiidh ah ama jacayl ah ka dhex marin, aqoon sidaas ahna aan isku lahayn, inay isku dhiibaan dad lamaane ah oo isqaba si markaas ay u fududaato in wadanka Sweden qaabilo guriga sharcina ay siiyaan. go'aankii way isla soo qaateen. labadooduba way soo baxeen waxayna soo aadeen dalka Sweden. markii ay sidaas u yimaadeen wadankaasi Sweden, waxay isku dhiibeen yihiin dad isqaba oo lamaane ah. kadib markii la arkay farihii uu Talyaanigu ka qaaday, waxaa lagu yiri idinku waa inaad qabsataan qareen idindooda maadaama aad tihiin dad faamil ah. haddaba waxaa dhacday in markii farihii laga qaaday kaam la geliyay. kaamkii markay muddo xoogaa ku jireen, waxaa isla markii hore laga siiyay guri markii la siiyay, waxaa dhacday in haddana isla markii ay ka soo wareegtay sanad la siiyo sharcigii. kadib markay sharcigii heleen, waxay bilaabeen in mid kasta uu hore ka shaqo bilaabo. kadib muddo 3 sano markii ay ka soo wareegtay intay isla noolaayeen ninkii iyo naagtii iyagoo waliba hal guri ku wada nool, guur sax ahna aan isku guursan, kaliya sida isku dhiibaan, ayaa waxaa dhacday buu yiri in wiilkii dhalinyarada ay saaxiibo u yihiin u sheegay inay baxeen oo galeen dhanka iyo Canada. kadib wiilkii wuxuu gabadhii ku yidhi, anigu waxaan rabaa inaan aado Canada. aniga iyo adiga waxaan noqonaynaa dad iska warqaba oo mar walba isla xidhiidha. markaan Canada gaadhana xaaladeeda waan kaaga soo warrami doonaa. haddii aan ku anfacdo, waxaan kuu soo diri qaabka aad ku soo bixi lahayd. kadib wiilkii wuu baxay. Canada ayuu galay qaab tahriib ahaan maadaama uu fiisa sax ka haysan dalka Canada. si fudud ayuuna ku galay oo Alle waa u fudaydiyay. wixii markii uu Canada sidaas u tagay, wuxuu isku dhiibay si qof hadda qurbaha soo galay oo aan meelo kala soo marin. kadib wiilkii Alle waa u fudaydiyay. hore ayaana laga qaabilay sharcigii yaraana waa u helay. shaqo hore ayuu ka bilaabay. haddaba waxaa dhacday wiilkii inuu sanad maqnaado. gabadhii waxaa soo gaaray war ah in wiilkii uu baxay Kenya uu aaday, uuna soo guursaday, uuna rabo inuu soo wato xaaskiisa.
gabadhii arrinkii markay maqashay kadib waxay bilowday inay xanaaqdo, waxayna sidoo kale dareentay inay wiilkii jeceshahay oo ay rabto inuu ninkeeda xalaasha noqdo isna guursadaan. kadib gabadhii waxay wacday wiilkii, waxayna ku tiri inta aadan soo wadanin gabadha aad guursatay waxaan rabaa inaad aniga i wadid oo aad Canada i geysid. kadib wiilkii arrinkii gabadha aad ayuu ula yaabay, wuxuuna ku yiri arrinka wax macquula ma ahan, macquul ma noqonayso waayo aniga waxba iga nagama dhaxeeyaan, anigu kuma jeceli, haddana xaas kale ayaan qabaa, iyada ayaana jeclahay, adiguna noloshaada xor baad u tahay, qofka doonto waad jeclaan kartaa oo waanad guursan kartaa, qof sharci leh oo meeshuu doono mari karana waa tahay. sidaasi ayuu igu yiri bay tiri gabadhani. kadib gabadhii waxay tiri haddii aadan ii samaynayn sida aan anigu rabo, waxaan samaynayaa kiiskaagii oo dhan ayaan bannaanka soo dhigayaa, dowladda Sweden waxaan u sheegayaa inaad khiyaantay oo aad iga dhuumatay oo aad aaday Canada anigoo aan ku ogeyn. kadib gabadhii sidii ayay samaysay, dowladda Sweden ayayna wiilkii ka dacweysay, waxayna sheegtay inuu khiyaamay oo ka dhuuntay, haddana uu joogo Canada oo uu ku nool yahay dalka Canada. kadib dowladda Sweden waxay gabadhii u sheegtay in arrinka wiilka iyaga khuseyn, mar haddii aanu dalkooda joogin, meeshuu doonana uu aadi karo. haddana waxay mar kale gabadhii bilowday inay wiilkii ku tidhaahdo waan ku ceebeynayaa, maadaama aan intaasoo sano hal guri igula noolayd adigoo aani qabin ama aan xaaskaaga aanan ahayn. wiilkiina wuxuu ku dhahay haddii aad sidaasi samaysid adiga ayaa isceebeeyey, labadeedana adiga ayay ceebta ugu weyni kugu dhacaysaa, mustaqbalkaaga dambena way saamayn doontaa. ceebtaasi kadib waxaa dhacday in ay dowladda Sweden ay ninkii iyo naagtii kiiskoodii dib u furaan, waxayna ogaadeen inay ahayn lamaane isqaba, been ay u sheegeen. kadib dowladda Sweden arrinkii aad bay uga cadhootay, gabadhiina waxay kala laabatay sharcigii, waxaana dib loogu celiyay waddanka Talyaaniga oo ay markii hore faraha iskaga soo qaaday. haddaba daawada gabadhaasi dhibtaas ma iyada ay isu geysatay, mise og tahay haddaad isdhahdo qof walaalkaa xaasid inay adiga xaasidnimadu kugu soo noqonayso oo ay kugu dhacayso sida aad walaalkaa la rabtay. fadlan gabadhani wax badso ayay isdhahday, balse wax beel ayay dhashay. gabadhaasi sidee u aragtaa dhacdadeeda, maxaase kula talin lahayd? fadlan commentiga ugu reeb.